kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeena falanqaynta wararka warbixinaha dhinaca dunaasiyada caalamka oo dhan qodobada aad ku maqli doontaan wararkeena waxa ugu waaweyn ciidamada Turkiga oo lagu qalabeeyay hub casri ah oo aan horay dunida loogu arag iyo dawladda dalkaas oo la soo shacbaxaysa qalab kale oo casri ah iyadoo ku sii dhawaanaysa tartamada xooggan ee dunidu ay u hoolan tahay in ay isku diyaariso Israa'iil oo ciidankeeduna iyaguna diyaar garowgii ugu badnaa ay galeen iyo dhaqaalihii ugu ballaadhnaa oo gacanta loo gashay waxayna sheegayaan inay isku diyaarinayaan dagaal mahuraan ku noqday qaarad cusub oo hadda la helay iyo xogta ku saabsan iyaduna arintaasi doorashadii dalka Liibiya oo la laalay muddo 6 bilood iyo safiirkii dalka Ingiriiska ee u fadhiyay magaalada Tripoli oo loo jaray PNG dalkana laga codsaday inuu ka baxo Faransiiska oo masaajid dalkaasi ku yaala albaabada isugu dhuftay kadib markii laga akhriyay aayado Quraanka Kariimka ah oo ku saabsan arrimaha isdifaacista qodobadaas iyo kuwa kale aad ku maqli doontaan wararka wacala dhinaca dunaasiyada waa 29 December 2021 shirkadda Amal Group iyo adeegyada loo bogay xawaalad internet xawaaran leh iyo kaydinta dhaqaalaha ee bangiga waa adeegyo waaweyn oo dhan kasta ka haqabtiray baahida bulshada Soomaaliyeed ee geyga iyo waliba caalamka ka faa'iideyso adeegyada Amal Group ومركل يوركي وعلى دين عدنا سيادة دون دارن. أنكم بلا بس تركنا قريسي أيضا معلومة جدا مية حساسة سياسية كأرى صناعي المجالات المقدسية حرب ذلك الصومالية يوركوا حشيجيا إن حالات السياسات المجالات وأي دكان تهي سعاده وجدا مية سو كلنا يتران رقيقية دين على السياسات ده ويبلعبين قار كم ذا مدحنا مع القبلة ده وكم ذا مدحناها قلم أحمد عبدي كارية قرقر مصر قرقر وأنت بدنا سجل ويا قنا رح حد نما يا على شيء إنه سعاده وجدا مية وذي رقيقية كأدن سيدي الرماس اللي حللها سو قرسي ورسي حاليا إلا عشية قار كمية السياسيين إنك صار الشقي إن حبناه كمية هي المدحوني هراء الصومالية مدن حسن شيخ محمود وكبي دي عشاص إنه يمادو هسه الشيء وراك يعشيق يعني إن أنت بدن حمناها دوني يحلك مدحت المدى ضلك يسياسيين تكلا ضلك الصومالية أي جوبشو كهاين شركاسي وحال أرك يضو سعودي قدام يسوق كلا يدقنت حالات أرمها سكوا أدنى سيدا وكلنا يجرين قار كمية دقنا ده أو دور الشوين أي كده عن سيدا دقنا ده شوبلن مقالة كسماية حرون تقبل كشبده هوسيا يا كمية دقنا ده أي دور الشوين كده تاسنا وحال شيء إنه كرو قاضي جديد ده كسر سنة يلا أرهنتن اللح اللبان وكتسن قلها شعب كده ولد فترة كيا لقو دورتي شلي مقالة كسماية وحنا مضيعة شاسي دورتي أفر كمية أي كتير صناعيين برلمان كي تبناد دلك kuwaasoo jigada hore u helay waxaana kamid ah wasiirkii hore ee maaliyadda Jubbaland Cabdirashiid Jirre Qalin iyadoo oo sidoo kalena la doortay xubno kale oo kamid yahay Siyaad Aadan Iidle Xasan Cabdi Ismaaciil Xasan Yare iyo sidoo kale xubno kale oo dhowr oo iyaguna halkaas ka doortay halka xubnaha kale la doortay uu kamid yahay Xamse Cabdi Barre waxa xilwaanadaasi ay imaanayaan iyadoo maalmihii ugu dambeeyay oo dhan la sheegay in isbedel xooggan ay keeneen amurankii arrintaas ka dhashay kadib markii ay dhul gariir ay noqotay hadaladii madaxweynaha iyo dhaxmaray iyo ra'iisul wasaare halka dagala socotaan wararka wacala dhinaca dunaasiyada sidoo dhanka kalena warbaahinta caalamka ayaa si weyn u hadal haysa khilaafka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaare warbaahinta caalamka ayaa waxa ay ka sameeyeen maqaalo aad u dhaadheer iyo sidoo kale ciwaano waaweyn arrimahaasi waxaana la arkay iyagoo si weyn u qaada dhigaya labada qodob ee gaar ahaan qodobka ku aadan hakinta madaxweynuhu uu sheegay inuu ka akiyay shaqadii ra'iisul wasaaraha dalka mudane Maxamed Xuseen Roble waxaana boqolaal kamid ah warbaahinta reer galbeedka iyagoo aad ugu wiirsanayeen markaasi sida ay Soomaalidu u kala qaybsantay iyadoo sidoo kalena xataa cid kale iska daayay ciidamada Mareykanka ee Afrika fadhiya ay ka hadleen arrinta kuwaas oo ciidamada Soomaaliya u diray baaq sidoo kalena warbaahinta Twitterka iyo warbaahinta bulshada gaar ahaan qaybtan Twitterka oo luqadda Ingiriiska inta badan la isku dhaafsado ayaa waxa ka dhex soconaya markaasi dagaalka ugu cuslaa oo ay wadaan dadka Afrikaanka oo gurmad aad u xooggan u sameynaya dawladda Soomaaliya waxa la arkayay iyadoo oo kacdoon dhinaca warbaahinta oo ku bilowday dalka Mareykanka iyo warbaahinta reer galbeedka oo looga codsanay inay faraha ka qaadaan dalka Soomaaliya kadib markii ku soo guuldareysteen Ethiopia inay hadeertan Soomaaliya u dhaqaaqeen kelmadda maya mardame ama no more ayaa waxa ay noqotay halku dhig ay isla wadaagayaan kumanaan qof oo baraha bulshada caanka ah kuwaas oo sheegay inay Soomaaliya u helinayaan dadka qaar kood ayaa waxay tilmaameen inay Afrikaanku inay isku hiliyaan ay mudan tahay iyagoo sheegay inay ka abal celinayaan Soomaalida uga heelisay kooxda argagixisada TPLF sida hadalka u dhigan qaar Ethiopia kamid ah halka dadweynaha kale ee qaaradda ka soo jeeda galbeedka Afrika iyaguna ay ololaha ku soo biireen waxayna sheegeen inay karahsadeen Afrikaanku in markasta oo khilaaf uu soo kala dhaxgalo madax Afrikaan ama uu dhib yar ka dhaco dalalka qaar kood inay reer galbeedku iyaguna ay la kala saftaan ama ay arrimaha wadankaasi dhex boodaan waxay ku tilmaameen hadallada ka dhanka madax banaanida dalka iyo sidoo kale in ay hadallo awaamiir oo baraha Twitterka lagu shaaciyo iyo maqaalo iyo waraaqo laga soo saaro
ay kicinayso oo kaliya shucuurta dadka Afrikaanka oo lagu baahan yahay mar walba in dib kasto Afrika dhexdeeda ka dhaco uu noqdo xal Afrikaan arrimahaas ayaa waxa ay u muuqdaan kuwo markaasi dadka qaarkood xataa ay ku baaqayaan oo Soomaalida gaar ahaan dalka Mareykanka degan in aan loo codeynin dadka ka qayb qaadanaya ayaa la yiri in Soomaaliya la faragelin xoogan lagu sameeyo iyadoo sidoo kale la sheegay in ay Soomaalida qaarkood ay ku baaqeen inay Soomaalidu ka fiirsadaan taageerada ay siiyaan xisbiga dimuqraadiga waa sida halka loo dhigay doorashadii ka dhacday bishii dalka gobolka Virginia 2 bilood ka hor ayaa gudoomiyihii gobolkaasi lagaga qaaday xisbiga dimuqraadiga oo madaxweynihiisa uu ku guuleystay ilaa 11 point muddo 11 bilood ka hor intii aysan doorashadu dhicin muddo 8 bilood ka hor kadib markii la sheegay in kumanaan qof oo Ethiopian halkaas degan ay ka codayeen xisbiga madaxweyne Joe Biden kadib markii ay sheegeen inuu farageliyay dalkooda haatan Soomaalida ayaa iyaguna baaqiyo noocaas oo kala saacadii ugu dambeeyay barta Twitter kala wareegay waxayna ku baaqayeen in Soomaalidu ay bedelato xisbiga una bedelato markaasi xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka halkan nagala socotaan oo wararkii wacala dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan ay dunida xogihii ugu dambeeyay dabashana qiimaha lagaan caalamka ee haatan aynu fiirino qaarad la sheegay la helay qaarad cusub ayaa indhowta wal hadalay horta muddadii 5 sanadood ee ugu dambeeyay wal hadalay inkastoo in qaaradaha adduunka ay 8 yihiin ay dood badan ka taagneed isla markaana ay jireen dad muddo ilaa iyo 300 oo sanadood hadalay in qaarad cusub ay dhaaban tahay ayaa ugu dambeyntii waxa la sheegay in qaaradan ay noqotay xogtii ugu horeysay mid la isla waafaqo inkastoo xogtii ugu horeysay ay soo baxday 2017 kuwaas oo sheegay khubaro in ay heleen qaarad cusub oo markaasna magac u bixiyeen ayaa ugu dambeyntii hadda waxa lagu dhawaaqay in ay qaaradaasi noqon doonto tan loo bixiyay Zealandia waxa qaaradan la yiraahdo Zealandia Rio Mao oo ah markaasi luqadaha afafka qabaa'ilka Maoriga ayaa la sheegay in ay tahay qaarad aad u ballaaran oo marka loo eego ayaa la yiri qaaradaha kale ee jasiiradaha ee dhaaman ee la soo helo inkasta oo lagu tilmaamay inay lix jibaar ka weyn tahay dalka Madagascar inta uu ku fadhiyo isla markaana ay 1.89 milyan oo kilomitir oo isku wareegsan ay tahay haddana khubaradu waxay sheegayaan in ay tahay meel aad u la yaab leh waxay ku tilmaameen in ay tahay Zealandia mid ay ku tilmaameen meel aad u qurux badan isla markaana ah dhul weyne la yaab leh oo inta badan ku weegaarsan badaha qaarkood waxay sheegeen in ay tafaasiil dheeraad ah ay bixi doonaan marka ay soo wada dhamaadaan macluumaadka waxay sheegeen in ay arkeen xogo kale oo muujinaya in meeshaasi ay ahayd meel dadka qaarkood laga yaabo inay mar deganaa jireen waxayna ku tilmaameen inay ka mid noqon karto xogo hore oo heleen khubaro kasoo jeeda dalka Britain 1895 oo halkaas ku tilmaamay inay arkeen raadad dad inay sii deganaa jireen si kastaba ha noqotee qaaradan ayaa waxay noqon doontaa dhul looda leeyahay mar haddii la helo waxaana ay taasi ay noqon doontaa mid ay dalalku kala ceshiimaystaan inta badan qaaradahan ciido lahayn sida qaarada markaasi Arctic ayaa waxay noqdaan saldhigyo military maadaama istaraatiijiyo ay yihiin isla markaana aysan cid leh aysan jirin halka nagala socotaan oo wararkii wacala dhinaca diblomaasiyadda dabashana qiimaha la soo kala xidoogisinaya dabashana qiimaha la wararkeena haata kadib waxaan soo kordhinay bar kale oo ay Hurfadhi Media leedahay oo leedahay Hurfadhi TV waxa uu noqon doonaa qayb kale oo markaasi lamaanaha Hurfadhi Media warbaahinta Hurfadhi Media soo dhexgali doonta maadaama Hurfadhi Media ay gacanta ku hayso dhismaha TV ballaaran sida daraadeed waxaad wararka qayb kamid ah aynu gali doonaa barta YouTube-ka Hurfadhi TV waxaan rajeynayaa inaad kala socon doontaan barta community-ga sidoo kale dabashana qiimaha leh waxaan rajeynayaa inaad soo raacdaan Hurfadhi TV oo noqon doona isaguna qaybaha kamid ah oo meelaha in wararka ku faafino hadii baydmo qaybta saddexaad ee warkastana ilaa iyo intaanu idinka soo siinayno macluumaad dambe waxaad ka daawan doontaan Hurfadhi TV marka Hurfadhi Media iyo Hurfadhi TV oo markaas mataana sidoo kale waxaan sameyn doonaa ballaarinta warbaahinta iyadoo aad ogtihiin in warbaahinta si weyn hadda tabriih ugu dambeeyay loogu hilbadirirayo dhanka kale ay jiraan markaas warbaahinaha reer galbeedka oo mar walba arrimaha Soomaalida iyo arrimaha dalkeena hooyo aad iyo aad ugu fogan hadeertan aad aragteen maqaalada iyo ciwaanada ay ka sameeyeen dalkeena dabashan qiimaha qodobka ugu dambeeya qaybtan ka tagi doono dhinaca arrimaha taariikhda ah oo iyaduna ay ku saabsan tahay iyadoo oo adduunku uu helayo tiknoolajiyada cajiibka ah ayaa hadeerto dalka Masar waxay ku dhawaaqeen inay soo saareen wajiga sidoo u ekaa boqorkii ugu horeeyay ee boqortooyadii Faraaciyiinta gaar ahaan taariikhda hoos socota ee loo yaqaan markaasi xilligii Nabi Muuse wixii markaasi dhalashadiisii ka horeeyay
sidoo kale loo yaqaan xilliga ka horeysay dhalashadii Nabi Ciise ama BC 1525 ilaa iyo 1504 ninkii xilka hayay qofkii xilka hayay ayaa la sheegay in laga helay inkastoo horey loo helay dabcan loo helay lafihiisa looga helay magaalada Deera al-Bahri 140 sanadood ka hor laakiin maanta waxa la ogaaday sida uu eeka waxa lagu soo saaray sida uu eeka qalabka tiknoolajiyada oo casri ah oo cusub sida ay sheegayaan khubarada Dr. Sahar Zalim professor ayadu dhinaca radiology-ga ah ee jaamacadda Qaahira faculty-ga medicine-ka ama qaybta caafimaadka ayaa waxay sheegtay inay tahay taariikh waxay tiri tusaale ahaan bay tiri waxaan haysanaa mid kamid ah taariikhyadii ugu weynaa waxaanu helay ayay tiri boqorkeenii 3 sanadood ka hor joogay ama boqorkii 3 sanadood ka hor inuu talinayay ayaan wajigiisa hela waxay sheegeen inay isticmaaleen waji dudubaha ayagoo sheegay in lafaha markii la isku rakibay sidii la isugu celceliyay isla markaana intii wajiga ha oo dhan la isla raadiyay ee la isku wada rakibay dabadeedna loo geliyay qalab yar kadibna la geliyay mashiin yar mashiinkaasna uu sawiray oo hilib u yaalay uuna soo saaray isagoo tixraacay lafaha indhaha godkooda sanka iyo afka ilkaha say u ekaayeen iyo dhamaan garhka ama jinka inay dhammaantood ay soo saareen ayay yiraahdeen wax u eg wajigiisa caadiga ah sidoo ah tani waa horumar weyn oo dunidu gaadhay waxay ku tilmaameen in xataa sidoo kale ay qiyaaseen inta uu dherer ahaan dherleka waxay sheegeen inuu ahaa ilaa iyo 169 dadka qaarkood waxay ku tilmaamayaan in haddii taariikhda saas loo fiiriyo uu noqon doono qofkaasi baa leeyahay fircoonkii ugu dameeyay halka dadka taariikhda qaarkoodna ay arrintaasi dood kale ka keeneen qaar kamid ah taariikhyahan ayaa sheegay in fircoonkii ugu dameeyay aan la hubin in markaas uu yahay in kale qofka inta badan dadku ay daawashada ugu tagaan iyo in sidoo kale laga soo saaray badda meydka kadib markii ay baddu qarqisay iyadoo inta badan taariikhdaasi lagu kala beersanayn oo inta badan diimaha oo dhan isku raacsan yihiin in fircoon kamid ah fircoonadii xilligii Nabi Muuse oo kamid ah kuwii ugu dameeyay baa la oran karaa inay haayeen inkastoo taariikhyahanada qaarkood ay qirayaan inay jiraan dad kale iyo taariikh iyo xubno kale oo ka dameeyay haddana si kastaba ha noqotee wajigan ayaa waxa uu muujinayaa in uu ninkaasi xitaa ilkaha ay ku jireen ayaa la yidhi wax ka sarreeya ilkihiisa caadiga sida taariikhyahanadu ay sheegayaan sawirkan cusub ee la soo saaray waxay ku tilmaameen inuu sidoo kale lagu gara doono oo caawi doono in dad badan la ogaado sida ay u ekaa jireen marka lafahooda la isku soo ururiyo